وحقبت كوزارة بيرها ده وحلا شيخا ما هي ده واحد كارك كريسان مشاريع ده وزارة وحرمرين تبيرها فلسي أو سنة كي هو الرئيسي أي دولة الصومالي الآن وأن لك عشان عيد كله أي بحسوا سدح مشاريع أو أنو قياسنا إنه ياي لبكون سدح بقولي كنتم هكتار أو لغو بيرها دلقية كلا دون حروركي والله صو صاري عربيقدي والله صو صار لكن ماشي محيا له روايدنا وادكاركيسين إن لا عنو عنتدا والله صو صاري يا ودنيغا ku hadlaya magaca beeraleyda guud ahaan waddanka Soomaaliland waxaan u mahadnaqaynaa horta wasiirka wasaaradda beeraha iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo maanta dawladdan ay maanta doonayso inay ku nuxnuxsato sidii wax soo saar loo gaari lahaa isku filaansho gaari mayno weli marka reality-ga doonayno laakiin waxaynu bilaabaynaa wadadii horumarka beeraha aynu bilaabaynaa beeraleyda iyo dadka wax soo saarka ka shaqeeya ay u korodho ilaha dakhligooda boqolkiiba 20 uu kor u kaco dadka beeraleyda shanta sanadood ee ugu guda jirno maxaa yeelay walaalayaal haddii aynaan dhiiri gelinin dadka beeraleyda ee wax soo saaraya oo inaan waxay soo saaraan ka iibsanin ma suurtagelaysa in wax la soo saaro beeraleydu waxay ahaayeen kuwii iyagu caqabna aan loo geyn jirin lacag aan loo kibay jirin cidina la haramayn jirin cidina duduwi jireen cidina
maanta aynu joognaa ama xafladani ku saabsan tahay maalinta adduunka oo ku beegan 16 Oktoobar macnaha loo dhigaa wax kale ma aha xigmadda ugu weyn ee ku jirta waxa weeye in qofka bini'aadankii uu si sharfan u noolaado oo uu wax la soo baxo oo uu waxa ku noolaado si uu u noqdo qof qiyam iyo sharaf iyo karaamo iyo caafimaad ahaanba u nool waxa caalamka loo sii socdaa oo wadamadan adduunka u sii socdaan wadan walba inuu ku wax soo saarkiisa kor u qaado waayo waxa lagu tartamayaa ciidda waxa lagu tartamayaa wax soo saarka waxaad arkaysaan in adduunyada ay u sii socdo dhinacii wax soo saarka marka wadan walba hadda wuxuu gaarayaa in waxa isaga ka soo saara isaga keligii ku filnaado haddii markaa reer Somaliland ay doonaan inay cuntada dibadda ku tiirsadaan yaa cuntada inoo keenay marka waxaynu u baahannahay inaynu isku tashanno tijaarteena iyo dawladda iyo beerleyda iyo dhammaan inaynu isku tashanno sidii aynu dalkeena wax uga soo saari lahayn raddii wasaaradda horumarka beeraleyda ka duuleysa siyaasadda dawladda ee uu hoggaanka noogu hayo mudane Muuse Biixi Cabdi waxaanu rabnaa inaanu taasi xoojino waana markii ugu horeysay ay xukuumaddu talada maanta haysaa miisaaniyadda ku darto 3 mashruuc oo aanu ka ingelinay saddex gobol oo ka mid ah dowladda Soomaaliland inagu aan ogtiin dhaqaaleenu inuu kooban yahay waxaanu iminkana ku dari doonaa sanadka soo socda haddii la yidhaahdo inaanu gobollada Sool iyo Sanaagna ka hirgelinayno wax soo saarka oo aan awood badan saarayno iyo gobolka Awdal gobollada saddexda gobolada maanta aan ku daraynaa sanadka soo socda haddii la yidhaahdo waxa gobol walba aanu samaynayno waxyaabaha uu gobolkaas u yahay wax soo saarkiisa oo aanu gobollada u qaybin doono gobolba in lagu tixgelin doono miisaaniyadda siduu wax ula soo baxo si loogu tartamo wax soo saarka waddanka oo aynu uga maarano cunnada dibadda ay nagu imanaysa إذن كنا قدير صدى